السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashinu macaruuni markaleetood maantana waxaan ka hadlayaa xuquuqda caruurta Soomaaliyeed xuquuqda caruurta ma taqaaniin waa maya aniga ahaan hada iska hadlo aniga because Soomaaliya ahay booskiga waan ka hadlayaa maanta waxaan ka hadlayaa ilmaha miciyaha laga soo siibo markay yar yihiin iyo kuwa madaxa laga gugubo ilmaha markay yar yihiin normal ahaan ani hadda ilmahayga qurbahan ku dhalay normal ahaan markay 5 bil 4 bil ay jiraano shuban ku dhaco ilmaha qaarna shuban iyo matag isla socda ku dhaco marka ilka u soo dhalanayo ayaga markay arkaan shubankaas iyo matagaas waa la ordayaa ayeeydi habaryarti eedadii kulli waa dhaqan la soo wada marmugta waxa leeyahay alla wad maxay ahaayeen geey ninka ilka ka soo siibo cunuga miciyahayo cunugiya yaraya la wadaya oo caafimaad qabo meesha la geynaa ciridkiisa la jeexaa markii la jeexo gudaha waxa laga soo bixinayaa mici soo dhalan rabay gudaha laga soo bixinayaa ilaaha idinku dhaariye saqiirkaas yar halaw xanuun maraayo xuquuqda caruurta may ka mid tahay waa maya waa laga soo saaraa markii laga soo saaro maalmo kadib cunugii waa sida ayaga niyeysteen waxay leeyihiin cunugii wuu caafimaaday maxay ahaayeen miciyihii oo ka reestay hadhowti cunugii ilka u soo dhalanayo ilka markii u soo dhashaano qaybtii miciyihii waa laga saaray ma u soo dhalanayaano way ka banaanayaan meeshii miciyihii laga soo siibay way banaanayaan sheekadaasna waa naqaana hadda Soomaalinaanay waliba Soomaalida badan inay wada yihiin aniga ma sheegi karo laakiin qaybta aniga meeshan ku soo koray sidaas ay ahayd tan labaad wiil yar badana wiilasha u badnay laakiin gabdhaha ma u badnaynin wiil iyo gabarba waxay rabaan ahaadaan cunuga madaxa ka weynaanayo madaxa markuu ka weynaado islaamiya isku imaanayo waxay leeyihiin alla madaxa ka weynaado orod ka soo gubgub hal soo gugubo cunugii waa la ordayaa madaxa laga soo gubaya dhash meelaha tinta dhexdooda wayba qarsamaysaa kuwii foolkii laga gubay ma qarsamayo ileen foolkii cunuga marka laga gubo way ka muuqanaysaa yaraantiisii wuu ku koraa asoo madaxa ka guban weynaantii marka waligiis way hor soconay madaxii way ka guban yahay nin weyn waaye maanta 20 jir oo noqday hadaro 30 jir oo noqday madaxii uu ka guguban yahay madaxiisa marka shalay markuu madaxa ka weynaay ilmaha normal ilma waxa jiro markii ay yar yihiin madaxa ka weyn because wuxuu cadeynayaa cunugaas inuu dheeraanayo ilma waxa jiro oo la daryeeli waayo maxay ahaay ilmaha markay yar yihiin waa la gidgidiyaa marba dhinaca loo gidiyaa si oo madaxa ugu weynaan ugu boosboosmin ilma daryeel xumo uga weynaada madaxiina way jiraan ilma oo dheeraan rabaan oo madaxoodu weyn yahay way jiraan marka aniga maanta labadaas aan ku soo qaatay labadaas xuquuqda caruurta kama mid ahan caruurta yar yarka aan hadli karin oo iska ka celin karin waay marka xuquuqda anaga Soomaali hadaan waxba kama naqaano ani ahaanteeda cunugan dhalay lagama yaabo inuu systemkaas maro adinkana sidoo kale insha Allah aan dadaalno